maxaa dhici lahaa haddii dalalka muslimiinta ah ay dhistaan niito u gaar ah oo ay midoobaan fikraddan hadda ma aha mid u muuqata waxaan suurtagal ahayn dhab ahaantii kadib weeraradii Israa'iil ku qaaday wadamada Carabta Sacuudi Carabiya iyo Pakistan ayaa hore u saxeexay heshiis difaac oo taariikhi ah kaas oo dhigaya in weerar lagu qaado midkood loo arki doono weerar lagu qaaday labadoodaba sida qodobka shanaad ee NATO oo kale dad badan ayaa leh tani waa bilowga waxa loo yaqaan NATOda Islaamka ama midowga Islaamka haddaba maxaa dhici lahaa haddii dalal muslimiin ah oo badan ay ku biiraan lana sameeyo NATO Islaami ah oo cusub haddii ay sidaas dhacdo waxay noqon lahayd isbedel weyn oo ku yimaada siyaasadda caalamka iyo awood qaybsiga gobolada Sacuudi Carabiya waxay keeni lahayd dhaqaale xooggan Pakistan waxay la imaan lahayd awood nukliyeer oo cabsi gelin lahayd caalamka intiisa kale Turkigu waxa uu ku darsan lahaa diyaaradaha duuliyaha lahayn ee casriga ah dalalka kale sida Iran Masar iyo Indonesia waxay keeni lahayn ciidan badan saldhigyo iyo dhul juqraafi istiraatiiji ah marka la isku daro waxay gacanta ku hayn lahaayeen marinada ganacsiga ee ugu muhiimsan dunida sida kanaalka Suez marinka Bosphorus marinka Hormuz Bab al-Mandeb iyo marinka Malacca haddii marinadan la waayo ganacsiga caalamiga ah ay ku dhawaad waa istaagi lahaaba sidoo kale in ka badan 65% kaydka shidaalka adduunka iyo 45% gaaska dabiiciga ah ayaa hoos imaan lahaa gacantooda waxayna lahaan lahaayeen in ka badan 6 milyan oo askari oo firfircoon ku dhawaad laban laab in ka badan awoodda ciidanka NATO maanta haddaba adiga maxaad u malaynaysaa ma suurtagal baa in arrintani dhab noqoto oo muslimiintu ay midoobaan ma rabtaa inaad online-ka lacag ka samaysid dhaqaalena ka kasbatid adigoo mobilkaaga isticmaalaya gurigaagana jooga waxaad u baahan tahay 60 xirfadood ugu yaraan laba ka mid ah inaad baratid haddaba xirfadahaasi waa kuwee waa AI-da affiliate marketingka cryptocurrency digital productska sida online-ka loogu iibiyo e-commerce-ga iyo freelancing-ka haddaba sidee ayaad ku baran karaysaa waxaa jira buugaag ku qoran luqadda Ingiriishka haddaba waxaa lagaaga soo koobay buugaagtaasi mid kasta oo ka mid ah xirfadahana waxaa lagugu soo koobay luqadaada Soomaaliga waxaad helaysaa buug si tafatiran kuugu sharaxaya AI-da affiliate-ka iyo xirfadaha kaleba buugaagtan waxaad ku heli karaysaa iyagoo PDF ah oo e-bookska mid kasta oo ka mid ahna waxaad ku helaysaa $1 oo kaliya haddaba $1 ayaad xirfadaasi oo dhan ku dhamaysanaysaa oo aad ku baranaysaa sidoo kalena fikrad aad uga helaysaa kunana shaqo tagaysaa waxaad u baahan tahay kaliya inaad numberkan igala soo xidhiidhid waxaadna 6 buugba ku helaysaa $6 oo kaliya waxaad ku baran doontaa tooliska muhiimka sida lacag looga sameeyo farsamooyin iyo tricks qarsoon sida aad uga shaqaysan karto meel kasta adiga oo jooga dhammaan waxay kugu diyaarsan yihiin iyagoo e-books ah oo PDF ah mobilkaaga ayaad ku helaysaa isla markana waad ku shaqo tagaysaa 6daas xirfadood marka aad fahantin sida dadka online-ka uga shaqaystaan hadda dalbo oo hadda hel numberkaas shashada saaran igala soo xidhiidh